بسم الله الرحمن الرحيم. wareegta ka soo baxday xafiiska maamulka gobolka Gadow sumadeeduna ay tahay xariijin ga xariijin 33 xariijin 2 eber maanta taariikhdu ay tahay 17 bisha shanaad 2020 ku dhammaan laamaha amniga og taliyaha xasilinta gobolka Gadow og taliyaha guutada gobolka Gadow ujeedo magacaabis gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gadow ahna madaxa amniga iyo siyaasadda gobolka Gadow kadib markuu arkay baahida loo qabo in la helo maamul la jaan qaadi karo isbeddelka guud ee ka socda gobolka Gadow kadib markuu arkay aqoontooda kartidooda iyo waayo aragnimadooda shaqo kadib markuu wada tashi dheer la sameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuu gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gadow xilal u magacaabay mas'uuliyiinta hoos ku xusan nuur maxamed jaamac waxaa lagu bedelay cabdixakiin maxamed cumar inuu noqdo madaxa maaliyadda degmada Garbaharey. cabdi aadan dheere waxaa loo magacaabay inuu noqdo xisaabiyaha guud ee degmada Garbaharey. cabdinaasir aadan xambe waxaa loo magacaabay inuu noqdo hanti dhowraha guud ee degmada Garbaharey. garuun maxamuud cigaal waxaa loo magacaabay inuu noqdo xoghayaha amniga ee degmada Garbaharey. ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gadow wuxuu farayaa dhammaan mas'uuliyiinta xilalka kala duwan loo magacaabay inay shaqadooda u gutaan si howlkarnimo daacadnimo iyo cadaalad ku dheehan tahay waxaana u rajaynayaa inay noqdaan kuwa ka soo dhalaalo shaqooyinka loo igmaday. wareegtadan waxay dhaqan galaysaa maanta oo ay taariikhdu tahay 17 bisha shanaad 2020 ahna markuu saxeexay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee gobolka Gadow mudane Cusmaan Nuur Xaaji Macallimu wabillahi tawfiiq.